noloshu ma ahan mid aad ka dhex raadinaysid naftaada, balse waa safar aad ku abuuraysid noloshaada, aadna samaynaysid wax ku adag naftaada in ay samayso. sidaas waxa yiri Saqraad. inaad qabato 21 cisho oo joogta hal shaqo ayaa ka dhigan in shaqadaasi ay ku noqotay qabashadeedu caado ama dabeecad aad leedahay. si kale aan u dhigno 21 cisho aad si joogta wax u aqriso, tusaale ahaan waxa ay ka dhigan tahay in akhriska uu yahay caado ama dabeecad aad leedahay. sida waxa inoo xaqiijiyay dadka ku takhasusay aqoonta cilmiga nafta, waana arrin la tijaabiyay oo dad badan ay horay u sameeyeen. kuwa kale oo badan oo aan anigu ka mid ahayna hadda gacanta ugu dambaysa marinaya. si aad u hesho nolol cusub, guulo iyo isbeddello wanaagsan leh, markasta ku dadaal inaad la imaato dhaqan wanaagsan, yeelatidna dabeecad kuu sahasha inaad gaarto halka aad u socoto oo ah guusha. 21 cisho ayaa ku filan inaad dhisto waddadii aad u qaadi lahayd horumarka, guusha, sidoo kalena u kordhin lahayd garashada maskaxdaada. kuwani waa 6 dabeecadood oo ay wanaagsan tahay inaad yeelato waqtiga ugu dhow. Lambar 1. jooji gunuunuca ama yuuska. farxaddu waxa ay timaadaa marka aynu ka tanaasulno ka waranka iyo dib u xasuusashada dhibaatooyinkii hore inoogu hareeraysnaa. dhaqankan ayaa noqday xarig baalasha kaga xidhan dad badan oo horay u duuli lahaa ama horay u socon lahaa. ka waran haddii dabeecadan aad u beddesho mahadcelin aad ka mahadcelinayso dhibaatooyinka aan ku qabsan oo ay dad kale la dhibaataysan yihiin, kuna dhiirigelisid naftaada keliya inay horay u socoto iyada oo ka faa'iidaysanaysa casharada guuldarrada ah ee ay soo martay. Lambar 2. u wanaag fal kuwa kale. ahawna qof dabacsan. ahaw qof wanaagsan si aad u hesho mid la mida. ugu yaraan isku day halkii maalin inaad u wanaajiso, dhiirigeliso, garab siiso hal qof. ha ka mid noqdo qoyskaaga, saaxiibada iyo helada, ama cid aadan aqoonin. u fur wanaagga qalbigaaga si indhahaagu ay u ifiyaan waxa wacan. Lambar 3. tabaruc oo u adeeg kuwa kale. dabeecadani waxa ay tan hore kaga duwan tahay, waa inaad gacanta ka qabato wanaagga. u asxaan fal qof uun maalinkii ama usbuuciiba hal maalin. si sadaqo ama wax aad awoodo dadka dawarsado oo kale. u dhimri qoyskaaga oo iyaga qudhooda ugu tabaruc xooggaaga. Lambar 4. jooji dibudhigista. deji yoolkaaga oo ballan qaad inaad fulinayso. adeegso liistooyinka oo raac muddo 21 maalmood ah cudurdaar la'aan. ku dadaal inaad fulisid wax walba oo aad qoraalka ku samaysay. Lambar 5. noqo mid dhagaysta ah. ha xukumin dadka kale haddii ay sameeyaan waxaan macquul agtaada ka ahayn ama qaldan. isku day inaad waxyaalahaasi ka eegto jihada ay iyagu ka arkaan ama sida ay aragtidoodu ay tahay si aad u fahanto ujeedka qabashadooda. jeclow dadka kugu xeeran xitaa haddii aadan jeclayn dhaqankooda ama aadan ku qanacsanayn iyaga. waxba ha ka filan oo aqbal wax walba. weligaa ceebaysana kuma noqon doontid. sidaas waxa inugula dardaarmay Anthony Hopkins. Lambar 6. ka takhallus xumaanta. haddii aadan ku qanacsanayn xaaladaada, hadda beddel. ma beddeli kartid miya? waa been. rumayso awoodahaaga. ka takhallus dacaayadda oo ka saar noloshaada caqabadahaaga oo dhan. baddu ma liqdo doonta, balse waxa ay liqdaa kolka doontu ogolaato inay biyuhu ay gudaheeda dhex sabeeyaan. qalad kasta oo ka socda hareertaada yaanu noqon mid dhex qulqula naftaada. halka aad kala socoteen mawduucaasi waa janalkeena Audiosom. fadlan subscribe, like iyo share.